xilliyadii hore dadku waxay arki jireen muuqaallo iyo waxyaabo la yaab leh oo aanay hore u arkin laakiin waxay ka cabsan jireen xilliyadaas oo aan jirin tiknoolajiyadda maanta jirta oo kale in markii ay sheegaan wixii indhahooda ku arkeen lagu magacaabo ama lagu sheego ama lagu tilmaamo inay yihiin dad waalwaalan oo caqligoodu iyo garaadkoodu uu dhiman yahay laakiin maanta waxaa la joogaa casriga tiknoolajiyadda iyo sayniska wixii aad aragtaba way kuu fudud yihiin inaad bulshada la wadaagto adiga oo sawiraya ama duubaya welibana waxaa sii fududeeyey social mediyaha oo lagu baahin karo dhammaan wixii la arko hadday ahaan lahaayeen cod sawir ama muuqaal haddaba barnaamijka ogaalka dunida qaybtiisa dhacdooyin waxaan kugula wadaagi doonaa insha allah waxyaabo la yaab leh oo qumuud iyo qarsoon ay ku jirto kuwaasi oo aan loo hayn fasir iyo micno gaar ah bal adigu haddii aad garanayso waxa ay yihiin iyo micnahooda nagula wadaag qaybta faallooyinka intaanan u gelin barnaamijka ka hor haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biiro subscribe-ka taabo gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan dhammaan muuqaalada halkan aan soo gelino ku soo dhowo barnaamijkeena iyo dhacdooyin muuqaalka ugu horeeya shay la yaab leh oo ka muuqda samada Miami dadku waxay arkeen waxaan halkan kaaga muuqda ee muuqaalka hortaada ah runtii waa muuqaal qurxoon laakiin lama garanayo waxa ay yihiin waxani iyo weliba sababta ka dambaysa inay halkani ka soo muuqdaan inta badanna waxay muuqanayeen habeen xilliga la duubana dabcan sida dareemayso waa habeen oo meeshu waa garoonka Miami muuqaalka labaad saddex geeska hawada lagu arkay samada ama hawada Amsterdam waxaa lagu arkay shaygan saddex geeska ah oo halkani heehaabaya shaygan la yaab kale dadkii arkay ama dadkii daawaday way garan waayeen waxay ku sheegaan sababtoo ah ma ahayn waxay hore u arkeen ama ay bargaranayeen haddaba arrintani maxaa lagu fasirayaa ma xukuumadda tijaabooyin ay samaynaysayba mase waa shay kale oo ka yimid tiknoolajiyad aan ahayn tan aan garanayna ee dhulka bal adiguba nala wadaag shaygan saddex geesoodka ah ee xoogaa muuqanaya kadibna sida degdega ah u qarsoomaya muuqaalka saddexaad balala fiiri waxaan hawada ama samada ka muuqda waa muuqaal qurxoon oo indhaha soo jeedanaya laakiin ma garanayo wax aan ku micneeyo iyo magac aan ku sheego mana garanayo xilliga iyo wakhtiga la duubay bal adiguba ila daawo oo micnana u yeel haddii aad faahfaahin dheeraada ka hayso muuqaalka afaraad layrarka iyo weliba iftiinkan halkan sare ee samada ka muuqanaya muuqaalkan waxaa lagu duubay New York bal halkaa ila eeg samada maxaa kaaga muuqda inkastoo aan ka cudur daaranayo in aanu muuqaalku ahayn mid waadixa haddana halkaa waxaa kaaga muuqda nalal ama iftiimo aan dhaqdhaqaaqaynin oo halkaa samada ku dheggan waxay ka mid yihiin nalalkaas iyo iftiimadaasiba waxyaabaha aan loo hayn fasir iyo micno gooniya muuqaalka shanaad qindiilka badda oo hawada lagu arkay hawada ama samada waddanka Urdun ama Jordan ayaa waxaa lagu arkay waxa loo yaqaano qindiilka badda oo halkaas sare ka muuqanaya shaygan lagu shabahay ama loo ekeensiyay qindiilka badda ayaa wuxuu u sii sikanayaa dhanka hawada iyadoona muuqaalkan uu duubay qof ku sugan gudaha waddanka Jordan ama waddanka Urdun muuqaalka lixaad roobkii caarada waddanka Brazil waxaa soo hoobtay caarooyin ama caarooyin aad u fara badan iyadoona markii dambe loo bixiyay magaca roobkii caarada iyagoo u soo da'aya sida dhibcaha roobka oo kale dad badan oo arkay oo si toos ah u arkay ama daawaday ayaa waxa ay sheegeen inay caarooyinkan aad uga weynaayeen kuwa hadda aan muuqaalka ka daawanayno ama aan ku arkayno muuqaalka toddobaad caasifaddii bacaadka halkani saxaraha ah qof ayaa muuqaal waxa uu ka duubay bacaadkan ama ciidan aadka u faraha badan ee ay dabayshu soo qaaday iyadoona sigaysa in ay daboolo laamiga ama halkii ay gawaaridu marinayeen waa muuqaal qurxoon haddana isla sidaasi oo kale aad u cabsi badan sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu gawaari badan in ciidani faraha badan ee dabayshu soo qaaday ay daboosho waddadoo idil ayna u suurageli weyso darawallada in ay waddada maraan muuqaalka sideedaad qof hawada ama samada ka muuqda magaalada Shanghai ayaa laga duubay muuqaalkan bal adiguba ila fiiri tolo waxa halka ka muuqda ma qofba ma filan la joogo beenbeenho khayaaliya mala awaalba mise waa qof dhaba daawada waxaad oran kartaa tani waa beenbeen waa muuqaal la sameeyay oo fake ah
laakiin maxaad ku qancinaysaa dadkii indhahooda ku arkay oo daawaday arkayna waxaa halkaasi ka muuqda ee shaabahaya qofka bini'aadamka ah muxuu yahay sheegaasi muuqaalka kaga dhex muuqda bal adiguba nala wadaag inta indhaha kala furtid si wacanna u eegtid muuqaalka sagaalaad qof si kedisa u soo baxay walaal waxaad ila fiirisaa muuqaalkan hortaada ah fiiri qaybta calaamadda guduudan ee ku wareegsan tahay qofkan sida kediska ku soo baxaya mayla aragtaan maxaad ku macnayn lahayd arrintaasi qofkan halkeebuu ka yimid calaamadda gadaasheeda ayuu si kedis uga soo baxay kadibna halkan ayuu si degdega ku maray bal adiga ayaan kaa sugayaa waxaad ku macnayn lahayd amaad ku magacaabi lahayd muuqaalka tobanaad dragon lagu arkay hawada dragonkii aad ku arki jirtay muuqaalada musalsalka ama filimada ayaa waxaa lagu arkayaa isagoo duulaya hawada waddanka England bal ila fiiri oo ila daawo muuqaalkan tolo waxaanay madhaba oo marunba mise waa feeg iyo mala awaal iyo khiyaal la sameeyay adiga ayaan ku daynayaa ee ila daawo muuqaalka 11aad caasifada hanqarka balala daawo muuqaalkan cajiibka ah alcaasifatu raacdiya caasifadii ama duufaantii hanqarka balala eeg hilaaca ka baxaya iftiinada quruxda badan indhahaba ku doogsanaya muuqaalada ugu dambeeya ee ku soo gabagabeynayno balala fiiri iftiinkan dhaqaaqaya runtii ma garanayo muuqaalkan halka lagu duubay iyo qofka duubayba sidoo kale waxaad ila daawataa muuqaalkan xiga oo isna ah iftiinkan daruuraha dhexdooda ka muuqda balala eeg iftiinkaasi tolow muxuu yahay halkeebuusa ka yimid waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan hadday tahay markii kuugu horraysoodna soo booqata nugu soo biir oo subscribe dheh gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan dhammaan muuqaalada halkan aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay daawashadaada mar kale fii amaanillah